Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaarta ku xiran Somtic Academy soo dhawaada insha Allah. Muuqaalkan waxaa kaa codsanaya inaad like aad saartid, taas waxay caddeynaysaa inaad channelka maaragtay aad xushmad u haysid insha Allah. Videogan dad badan ayaa soo codsaday oo macnaha waxay dhaheen waxaa muuqaalka soo sameysaa sida lacag loo deposit gareeyo. Dad badan oo waxaa arkay ku adag tahay inay lacag deposit gareeyaan. Waxaa arkay kuwo fara badan oo broker iska diiwaan geliyay siba linkigeena oo weli aan deposit sameyn arkay. Marka qaarkood aqoon daro ay u geysay, intii fahamsanaydna alxamdulillah waaba depositka waa maaragtay waaba u fududahay insha Allah, ma garatay. Marka waxaan war wax weyn ku daalin insha Allah. Steps-ka ayaa galay. Marka ugu horeysa waxaad maaragtay aad username-ka iyo password-ka ku soo gal FX Experience aad ku leedahay. Kadibna waxaa imaanaysaa dashboard-ka imaanaysaa. Marka imaadid halkan waxaa kugu qoran qaybtan maaragtay account overview, xog ku saabsan MT4-kaaga ayaa kugu qoran. Marka haddaad rabtid inaad deposit gareyso, laba qaab oo u deposit gareyn kartaa: in halkan inaad batoonkaas aad riixdid aad dhahdid deposit, ama inaad maaragtay aad tagtid tab-kan aad furtid kadibna aad tagtid deposit, kabacdina deposit-kaas aad dooratid. Labadaas qaab waa sameyn kartaa. Kadibna calaamadda plus-ta furaysa make a deposit ayaa dhihi kartaa. Marka waliba qaabab kala duwan aad u deposit gareyn kartaa. Inaad deposit toos aad sameysid broker to broker transfer, macnaha inaad lacag tusaale ahaan broker kale haddaad rabtid inaad lacag soo dirtid oo kan u soo guurtid oo kale, broker to broker transfer ayaa la dhahaa. International wire transfer waxaa waaye in macnaha bangi wire transfer inaad ku deposit gareysid oo warqad Swift code-ka marka inaad Swift code leedahay muhiim waaye. Haddaad Swift code aadan haysan, muuqaal waxaa jira aan kasoo sameeyay aad ku heli kartid qaab sahlan. Soo daawo insha Allah. Waxaa idin dhigi doonaa kor ayaa idin dhigi doonaa iyo deposit history. Marka haddaad rabtid inaad bilowdid, marka aniga example-kan halkan ayaa dooranaya deposit, taas ii fudud. Deposit ayaa click siinaysaa. Kadibna markaad deposit click siisid, halkan MT4-ka aad deposit haddaad dhowr MT4 ku leedahay mid ka mid ah aad rabtid inaad lacag ku shubtid ayaad dooranaysaa just hal mar. Okay, amount-ga marka waxaa gelinaysaa lacagta aad dhigi rabtid tiradeeda, ma lacagtaasi waxaa u yar $15. waxaa maaragtay ilaa intaa rabtid, ma $1000 dhiga rabtaa, ma 10,000 ma dhiga rabtaa, whatever adiga waxaad dhiga rabtaa halkaan ku qoraysaa. Ma fahantay? Example-kan waxaa kasoo qaadanaya inaad $15 oo kale aad deposit aad sameeyay. Okay, kabacdi waxaa leedahay check ayaa waxaa saaraysaa I declare that I have carefully read, fully understand and accept the deposit and withdrawal aad leedahay. Kabacdi deposit ayaa taabanaysaa. Waxyaroo wareegsanaya wuxuu geenayaa page cusub. Wuxuu markaa ku weydiinayaa xogta, macnaha qaabka rabtid inaad u deposit gareysid. Ma Mastercard aad rabtaa inaad ka deposit gareysid, ma BitPay aad rabtaa, ma Skrill aad rabtaa, ma Trust, ma Neteller aad rabtaa. Qaabab fara badan ama options fara badan oo waxaa jiro aad ku deposit gareyn kartid. Marka tusaale ahaan aniga waxaan leeyahay credit and debit card aan leeyahay. Markaad dhahdid wuxuu keenayaa halkan marka waa meesha ugu muhiimsan dadka inta badan ay ku wareeraan. Waa macluumaadka kaarkaaga bangiga, Mastercard-kaaga ama Visa card-kaaga ayaa lagu weydiinayaa halkan waxaa gelinaysaa kaar lambarka, lambarka dheer ee kaarkaaga wajahada hore uga qoran 16 digit ka kooban ama 16 god. maaragtay lambarkaas ayaa halkaa gelinaysaa qaybtan kalena magacaaga ayuu si automatic u gelinayaa.
marka waxaa muhiim ah marka account-ka aad furanayso FX Primis magaca maaragta aad ku furatay markaa buuxinayso foomka iyo magaca kugu qoran Mastercard-ka waa inay same ahaadaan. Fahantay? Marka waxaa kuu soo haray halkan card expire macnaha xilliga dhacay date-ka dhacay kaarka ayaa halka qaybtaas gelinaysaa. Qaybtan CVV waxa waaye waa lambar 3 lambar oo dhabarka dambe kaarka marka dhanka u gedisid waa ku arkaysaa yani 3 lambar oo gadaal ugu qoran oo maaragtay 3 lambar ayaa halka gelinaysaa. Marka CVV-gaas marka ku wareerin waa kaarkaaga le maaragtay dhabarkiisa maaragtay ama baaga gedi waxaa arkaysaa 3 lambar meesha ku qoran. Kabacdina marka intaas sameysid waxaa leedahay wax walba aad hubtid waxaa taaban doontaa deposit insha Allah. Marka deposit dhahdid maaragtay wuu hubinayaa insha Allah. Kabacdina marka sidaas ayuu marka lacagtii ay kugu dhigmaysaa. Marka insha Allah xogta Mastercard-kayga ayaa ku buuxin doonaa insha Allah. Kabacdina waa isku soo laabanayna insha Allah. waxaa isku day doonaa xogta Mastercard-kayga aan qariyo maaragtay maadaama yani ay jiri karaan scammers ama tuugo dhanka internetka oo lacagta maaragtay Mastercard-kaaga la bixi karaan haddii Mastercard-kaaga information-kiisa la helo. Okay, waa macnaha markaan aan buuxsho isku soo laabanayna insha Allah. Okay, marka asxaabta masha Allah ku guuleysan deposit-ka sidaas ayaa u sameynay. 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo bacdi lacagta aad deposit gareysay waxay ka soo muuqanaysaa balance-gaaga MT4-ka insha Allah. Sidaas ayaa deposit u sameey maaragtay qaabkaas waa qaabka saxda ah loo sameeyo. Muuqaalka marka haddii uu ku anfacay ama ka heshay like iyo subscribe saar insha Allah. Ma sanid.